Bismillahirrahmanirrahiim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono shan arin oo uu xayiran yahay shirka golaha wadatashiga qaran uga soconaya magaalada caasimadda Muqdisho. Haddaba dooda adag ee dhex taalla madaxda ku shirsan magaalada Muqdisho ayaa daawadayaal warbixintan idinkugu soo gudbi doona, waxaana ku soo koobi doonaa shan arrimood oo uu xayiran yahay shirkaasi. Maxay kala yihiin? Warbixintan daawade kaga bogo halkan ayaana daawadayaal idinkugu jeexjeexi doonaa. Madaxdu waxa ay isweedaarsanayaan afkaartooda iyo doodahooda ilaa iyo haddana la iskuma raacin qodobka in amniga guud ee dalka lagu wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Haddaba sabab ayaa qodobkaasi la isugu hayaa. Maxayse tahay sababta ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble loogu aamini laayahay amniga guud ee dalka? Falaqayn ayaa daawadayaal ku sameyn doona. Warbixintan ayaana xoga arrimahaasi la xiriira idinkugu soo gudbin doona. Hayeeshee intaanan guda gelin waxaan daawaday ka dalbanaya oo ka codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furan ee gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag. Markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena. Kadib shir 4 maalmood uga socday magaalada caasimadda Muqdisho ayaa Khamiistii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa ay ku heshiin waayeen qodob ku aadan cidda maamulaysa amniga guud ee dalka Soomaaliya. Madaxda ayaa lagu soo waramayaa in dood adag ay ka yeesheen qodobkan oo la xiriira amniga qaranka, iyadoo ra'iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedyada ku aragti ah ay doonayaan in maamulka amniga guud ee dalka lagu wareejiyo Maxamed Xuseen Roble iyo in taliyayaasha ciidamada ay ka amar qaataan xukuumadda oo kaliya. Maamul goboleedyada kale ee diidan qodobkaasi ayaa ku doodaya in arrintan aanay qayb ka ahayn arrimaha quseeya doorashada. Haddaba halkan waxaan ku eegi doonaa shan arin oo ku aadan qodobkan uu xayiran yahay shirka muhiimka u ah arrimaha doorashada ee madaxda golaha wadatashiga qaran uga socda magaalada caasimadda Muqdisho. Maxaa keenay qodobkan? 27 Diseembar 2021 ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa si toos ah ugu eedeeyay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wax uu ku tilmaamay isku day afgambi. Ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay in Farmaajo uu soo weeraray xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada si uu u horjoogsado gudashada waajibaadkooda qaran. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo isla maalinta u waramay idaacadda BBC-da ayaa beeniyay inuu dhacay afgambi, waxaana uu tilmaamay in ra'iisul wasaare Roble uu arrinta ku qarinayo shaqo joojinta uu ku sameeyay Farmaajo. Wixii maalinta ka dambeeyay waxaa Muqdisho ka socday dhaqdhaqaaq ciidan oo abuuray cabsi ah in ay dhacaan dagaalo la mid ah kuwii Abriil 2021 ka qarxay caasimadda. Kala qaybsanaanta maamul goboleedyada sida aan ogaanay isla markaana ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ku dhow shirka golaha wadatashiga qaran, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo taageero ka helaya madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa ku doodaya in aanay doorasho daafuran dhici karin inta uu madaxweyne Farmaajo leeyahay hogaaminta amniga guud ee qaranka. Waxaa dhinaca doodaasi diidan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, iyadoo aysan si rasmi ah u cadeyn aragtida madaxda Galmudug, Hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo u janjeera dhanka madaxtooyada Villa Soomaaliya. Dooda garabkan ayaa ah in arrinta amniga guud aysan quseyn shirka ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyo isla markaana uu mas'uul ka yahay amniga doorashada. Qodobkan oo aan weli laga heshin ayaa lagu tilmaamay in uu yahay kan ugu adag ee uu hadda u xayiran yahay shirka ka socda magaalada caasimadda Muqdisho. Dastuurka iyo amniga guud ee dalka. Dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya qodobkiisa 9aad xarafkiisa ba ayaa dhigaya in madaxweynaha uu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, iyadoo faqradda xigtana ay sheegayso in uu awood u leeyahay magacaabidda taliyayaasha ciidamada heer federaal iyo ka qaadista xilalkooda marka ay soo jeediyaan golaha wasiirada.
muddaxileedka madaxweyne Farmaajo ayaa dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkii hore 2021. dastuurka sooma hadal qaadin awoodaha madaxweyne muddaxileedkiisu dhammaaday, laakiin weli xafiiska fadhiya. dadka taageersan madaxweyne Farmaajo ayaa ku doodaya inaysan jirin sabab uu amniga dalka iyo maqaamka ah taliyaha guud ee ciidamada ugu wareejiyo ra'iisul wasaare Roble oo haatan uu khilaaf kala dhaxeeyo. dadka taageersan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa iyagu qaba in madaxweyne Farmaajo muddaxileedkiisa dhammaaday, isla markaasna uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynenimada mar kale. xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedyada ku aragtida ah ayaa ku doodaya in madaxweyne Farmaajo uu awood u leeyahay in ciidamada ka amar qaata uu ku carqaladeeyo doorashada, taasina ay tahay sababta ay u doonayaan in uu u wareejiyo amniga guud ee dalka. amnigee lala wareegaya. dadka diidan in ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyo amniga guud ee dalka ayaa qaba su'aal ku aadan qeexidda amniga ay tahay in lala wareego. waxa ay tilmaamayaan in ciidamada federaalka ay ka howlgalaan oo kaliya 3 magaalo madax oo ka mid ah 5 xarumood ee saldhigga u ah maamul goboleedyada. maamul goboleedyada ay joogaan ciidamada dowladda ayaa daneynaya in ay fahmaan sida uu yahay isbeddelka, halka amarka laga siinayo ciidamada dowladda federaalka ay u saameyn karaan amnigooda iyo danahooda. doodooda ayaa ku qotonta in ciidamada federaalka aysan awood muuqata ku lahayn Kismaayo iyo Garowe, sidaa awgeedna uu dhalanteed yahay amniga guud ee la wareejinayo. waxaa kale oo ay tilmaamayaan in haddiiba ay dhacdo in Roble gacanta loo geliyo amniga guud, cidda damaanad qaadaysa in uu ku dhibaateyn doonin maamulada hadda taabacsan Farmaajo ee ay joogaan ciidamadaasi. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa warbixintii aad ka daawanayseen channelka Xogta Media. haddii aad daawatay like inoo saar, subscribe inoo saar channelka Fura Gambalelka. tan iyo warbixintan mid la mid ah inta dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.